ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xalay oo ay taariikhdu ahayd 9kii bishii sanaad 2019 tobankii habeenimo xideen xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool kaasoo ku kacay falid ku ah qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland kana hor yimid tiritaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobada dastuuriga ee kala ah 49 isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah isagoo ka horiyay mabaadi'dii qaran ee ummadda isku xaasana laakiin eedin may maalin gobonimo maaha waa maalin beesha SNM dareen iyadu ay leedahay ay ku cabaraso Soomaaliland oo ma aha maalin taariikh leh Soomaaliland oo ma aha maalin taariikh leh waa maalin beesha SNM iyadu ay calaamad sito u dabaaldegayso waliba beelaha darafyadu maalin madow bay u yaqaanaan maalin dadkoodii la qaxiyay boohooda la qaxiyay boorama la qaxiyay ceergaaba la qaxiyay 79 isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah isagoo ka horiyay mabaadi'dii qaran ee ummadda reer Soomaaliland iyagoo isku dhan ay wadajir ku go'aansadeen shirweynihii goonistaagga qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco oo isagana ka horyimi kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay taasoo ka hor imanaysa qodobka koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku jiraa falgaran isagoo lagu hayo hadaladiisii oo dhammaan ku faafiyay baraha bulshada midnimadii Soomaali lala galay 26 Juun baa beesha SNM xanuun ka qaaday xanuunkaas kalifayeen maalintii ka guuraan maalin kale iyagu dumarkoodii caruuraha dibadda u soo saaraan ay u dabaaldegaan marka waa maalin reerkaas u leeyahay beesha SNM leedahay maalin qaranna ma aha uma dhaqan maalin qaran